وعكروا كورقتهم وعوي إن إنه ريكورد لي دقاقي راعي هي ريكورد هي دقاقي راعي marka waxa aad loogu dadaalay waxyaalaha la leeyahay wala ku leeyahay verification la garo in waxa ka ruunayo waxa ka ruunayo waxa la soo gatay marka intii la leeyahay in ilaa tahay iyadoo uu la tahraacayo wixii ka yimaada dalka wada ku leeyahay waraaqaha ka imanaya oo inuu ama sahnay ama iyaga reerkooda ku jira intaas ay leeyahay إذا عرفتوا طريقة بالمرتاح طريقة هيك كأنش تفكر لها إلا بدي يكون للسبيعي بالمرتاح طريقة الإصلاح كرتي وهي وهذه دين بيقول هي ولا جا ديس اللي سجع فيها وعلى هاي هذا هيكل ثانية أو دين بيقول هي فطوان الإصلاح كرتي ما تشوف حكري يا هذه الأسئلة كتبوا إن الأسئلة بحكرينا دي الأسئلة جاية وأنا وضع صومة هيك initiative highly elected poor countries initiative وضع مركي بسميني قانون كا إيرانية سرالية سكان وطن أيا كوجيها كان نات تاجنا وكذا تاجنا نرى أجمع كي الناس أنا يبغى سرالية سكان سرالية سكان كي من وسط أحوال السكوسة أنا إنتي كونا طريقة سنتي وكبحر إنتي وكبحر إما كوها على النجا في السودان في زيمبابوي وهذا الوقت هاي لوضع على إنه كهر رينو وكهر جلي إنه دين كبحر صلبت عن وهو جلي إنه وحوي قرار إنه وقاضي إن طلابي كلهم بهاي دلال كنا للجبارنو سد جبارنو وأن قارن كرنا حمل وين مع صار الوضع وذن لقى سيدوكيه أنا ويسنتي فور بكتير منك قالوا لي إيه طريقة كذا هل كان حبنا بروفيسور زبيجان يقول يلا جامعة وحن شيء يقول ويد عدلوا أفر سنة أيدي نورمالي قاتان أفر سنة نورمالي عادوا سعطوا وهذا ما جامعة يقريبا قادم لكن هذا أوفيسير اللي تتح طول سنة ورقم قادم لأن ما عليه كورسير بقادم هذا ما كورسير بقادم يا تصدق كل ما يروى جيانو يكرر في بصلاة ومكانس إنه هو حميل وح الله وحبني هذا ما وكر أيام أولنا سنة يسنة كنا ده وح الله وحبني هذا ما وكر يا أولنا يفهم حدودنا أنا يعني لا شيء بنقدر نعمل لكن capacity اللي هي كان تشتغل هي بينو سامي حويدي يا ده وعدنا صبرنا ببانش في هاي سكول سوى سري وحبنا مقالة كذي capacity اللي بينو سامي حويدي إن هالك لا فكر إنه حاجة تانية ما طبعا تقول كبدون يوحوي إلى هي هذول الأمور international community كان كل شيء فيه ويمر كلا قاعدين يتلقى عافية فرد إن لا فريستو ما قاعد يقولني فرد بعض فريسين ما يقولني وفرد قرار شذا يا أما قام قرار شذا دي كده فرد قاسا وحب هاي شغبة إلا فريستو والإسلام كرتو يديت اللي فرد قاس يا مجاني هكي مجاني يعني ليه وقلت لي شهية الطبعات ذات بيتي لكل يوم يسكرها عام إن فرد جاي مجاني يا هذا ما نتعلم الاستثمار ولا يسكرها عام شهية الطبعات كاسمركا وكشقين وأنا كشقين إنها ديار بيماتي يا هذه إيه بيدمو إن فرد جاس سورة waxa kala fadhiga ismulgalaya in fadhiga la yimaado qolo walba deynteedii say u habeen lahayd ya America billion dollar bay leedahay $1 billion waa in la yimaadaan fadhiga marka la fadhiisto ila iska kasal garay karaan waxa lama kasal garay haba loo sameeyo budgetka lagu daraayo deebtana dawladdu yadaas isa siinaysa laha systemkaas ya meelaha qaarna institutionska ده وضع كده هذا كاينو إنه وضعنا ذي لها هدي كم لولية
wadannada dhaaway inay samata bixiyaan lacagta isku keenaan dabeetana lacagta iyaga dib ugu celiyaan institutionka haddii institutionku iska kasabgareeya oo dee u kacaya sawka ya 500 milyan bay nagu leeyahay World Bank 330 milyan nagu leeyahay IMF 130 baa African Development Bank nagu leeyahay ya marka lacagaha in la habeeyo ayaa loo baahan yahay oo iska salimaayeen in meel ka yimaadaan weeyaan ya oo accountskii lahaa bank aan waxba ku dhicin taasina iyada waa talabaad ta saddexaad ee important waxa weeye adigu wixii loogu diray inaad qabatay wixii loogu diray oo kani ka mid yahay inaad qabatay weeyaan tiro waa qabanaya haddaanad qaban horta cid kale isku imanaysa ma jirto haddaanad qaban marka waxaas doonan waxay dhacaya marka taada qabato marka maanta meeshaan taagannahay iyo sanad horteed meeshaan taaganay shaqada Soomaaliya maanta waa kaas golaha taagannahay dadkii baan kulaabaynaa agtiisa taagannahay idayta laga cafinaaw mudan yaanay barweyn dayta cafinteeda maaha waxaan ku soconnay keliya waxaan ku soconnaa faa'iidada dadka Soomaalida ee markas ayaan ku soconnaa laba arrimood baan doonaya inay ka warramo horta waxba faraha kuma haysano marka waxaan maanta idhaahdaa waa sidaan u malaynayno dadka ka maqalay ya iyo sida wanaagsan ee doonayna sameeyo haddii suurageli weydo macnaheedu maaha been baan sheegaynaa maaha waa ku heshiisnahay in sidaa la yeelo laakiin haddana futureka ma wada garan karti ya waa dad fikrada la isku keenay oo dad fara badanna waa involved now laba arrimood baan meesha oo dalka in la dhiso ayaan biyo doonaa dalka la dhiso lacag badan dalka soo gasho oo dadku shaqo helaan shaqada dowladda u maahe waa private sector ku leeyahay shaqada halka taala haddii meel walba waddo laga dilaayo haddii biyo xidhnada la sameeyo haddii la sameeyo irrigation systems haddii la sameeyo haddii education iskuulada la dhiso waxaasoo dhan shaqay abuuraya taasaan doonaynaa in la sameeyo laba arrimood haddaba mid waxa weeye wax national issue midna wax regionka aan la wadaagna wey labada windows baa la dhahdaa waa daaqadoo lacag yaalaan daaqadana waxba yaa daaqadana waxba yaa now daaqada localka ah ee inagu aan iska leenahay waxa weeyaan beerahan aan xilaynahay noo sameeya irrigation noo sameeya waa national weeyaan wadada muqdisho ka baxda jawaabtaan sameynayna waa national weeyaan laakiin wadada muqdisho ka baxda aad soo gaarsiinaya waa regional issue laba mashruuc baa markaa wadnaa iska rafta mashruuca regional Horn of Africa Regional Development mashruuca ah ee shanta wadan ku bahoobeen waa Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti, Eritrea ku bahoobeen 15 bilyan weeyaan mashruucaas 15 bilyan weeyaan mashruucaas hadda ayaa ka shaqeeya horena waa mashruuca isagoo ka shaqeeya 15 bilyan wax haaf ku dhow waddankeena ku baxsan laana waddankeenu waana burbursan yahay wax badan intay kuwaas soo wadeen oo dhan wadadii midhaha halkaa laga qaadan hilaayeen hala geeyo oo reeriya motoodii way soo wadaan oo way dhamaytireen innaga waxaynu wada qabiya wey lacagta intooda badan marka waxa ku baxsan wadada muqdisho ka baxda ka garowe ka baxda ka meelemeelada ka baxda adduunka kala gelaysa baaqdeena intay ka yimaadaan meelaha kala gelaya doonayaan wax geeyo ya lacagaha intooda badan 15 bilyan taasay ku baxaya 15 bilyan oo 5 sanadood weeyaan marka shalay markaa sheegay wasiiradii gobolada ka yimid dhanbaa joogay mashruuca waxaa wada World Bank, African Development Bank iyo EU yaa wada waxaana weeyaan madaxweyneena iyo madaxda kale hore isugu raacay garas now mashruuca isaga maalintii dhow waxaa la ballan qaaday World Bank nagu yidhi 2 bilyan baan haynaa African Development Bank intaa ku dhow baan haynaa EU lacagii istadiska lagu sameeyay inaga waxaynu diyaar maaha maanta haddii xataa dadka naga cafiyo mashruuc dhammaystiran oo aynoo leenahay waa kan finansaraya ma jiro waa in imika gunta soo xadnaa wey ya oo lacag intaan helo dabeetana istadiskii la galaa feasibility la galaa mashruuca koskiisii la helaa concept notes iyo arrin la diyaariyaa we are asking marka sectorska productive inay waxa soo sameeyaan through the Ministry of Planning iyadoo planninkeena lagu xidhay marka kaasi waa kaa weeye mashruuca weyn socda oo insha Allah tacaala gudoomiye
qaybina ka qaadan doono ya ayuu mashruucaasi mashaariicda kale loo kala qaado waxa weeye baananku waxay leeyihiin soft windows leedahay soft windowskaasi World Bank maalintii waxaa yidhi ilaa 300 milyan 300 milyan 400 milyan sanadkii waa helaysaa ya leanna waxay ku xidhan yihiin dhibaatada kuwaasantee leetahay waxbaa la calculate garaynayaa GDP-gaaga ku jiro dhibaatada kuwaasantee leetahay waddanku intuu leeyahay income-kaaga intuu leeyahay dakhligaaga waxaasoo dhan isku geeyo ayaa wax kusinaya amount marka haddii deyntii lanaga cafiyo waxaan filaynaa waxaad kiisii ku jiraan soo saaraya maaha waxay u eg tahay oo filaynaa waxa weeye dad loogu tagnay oo hawl lagu cusub maaha waxaan rajaynaya sida uu wasiirku yiri caawiya waanu soo jeedanaa beri waa kulmi karnaa hawshaan iska dedejino wax nagu cusub maaha waxaan qabaa inuna inagu dheeraan uu si degdega inooga baxo sababta waxa weeye bisha 30-keeda in madaxweynuhu saxeexo ayaa loo baahan yahay kolkaasi waxa weeye waa dadejisanaynaa kolkaa guddigu la wareego sharciga kolka maanta iyo berri waa ka soo shaqaynayaa sabtigana waynoo keeno aad iyo aad baad umahadsantihiin waa fasaxaynaa